Guddida nabadgelyada gobolka Togdheer oo uu qayb ka yahay badhasaabka gobolka Togdheer oo kulan warbaahineed ku qabtay xarunta maamulka ayaa u diray bulshada gobolka Togdheer fariin ku aadan amniga. Guddida nabadgelyada ayaa sheegay in cid kasta oo si qaldan uga hadasha xaaladda ceel afweyn ee u dhaxaysa labada beelood ee walaalaha ah ay gacan bir ah ku qaban doonaan, iyaga oo sidoo kalena sheegay in aan la sii dayn gaadhin nooha ah oo lagu qabtay magaalada Burco, isla markaasina ay xidhan yihiin wadihii iyo gaadhigiiba. Haddaba ugu horeyn waa kuwan taliyayaasha qaybta booliska iyo asluubta gaashaanle dhexe Cali Maxamed iyo gaashaanle sare Jaamac Baadi oo fariintani diraya. Riyahan dambe hadallaan maqlaynay saxaafadda lagaga hadlayo oo aanu aragnay inay lid ku tahay nabadgelyada iyo deganaanshaha ummadda reer Soomaaliland. waxaanu soo jeedinaynaa ama aanu digniin u diraynaa cid kastoo isku dayda inay khalkhal geliso nabadgelyada ama ay dhaawacdo qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland. Booliisku wuxuu ballan qaadayaa inuu tallaabo sharci ah ka qaadi doono. taasi waa ta kale baabuur baa hadii laga hadlayay oo la lahaa booliiska sii daayay anu baras muxuu ahaa taliye qayb ahaan waxa iga soo horeeyay jiranka ciidamada booliiska ku-xigeenka ciidamada booliiska General Fooxle iyo taliye qaybta booliiska Yusuf Shire Abdi. gaariga waa la soo qabtay waa baabuur nooha ah bini'aadanku inay wax aan jirin sheegaan ma aha. baabuurka waxa saaray watay qolooyin baa nin baa watay ninkiina qori buu watay. markaa qorigii iyo baabuurkiiba way xidhan yihiin. sharcigu wuxuu ka qabanay noqon doontaa maxkamaddan u gudbinay isagana jeelku ku jira. wax kale oo meeshan laga doonayo iyo baabuur la sii daayo booliisku sii daayay iyo waxaan laga hadlayo ma jirto. nabadgelyadu cid walba danbay u tahay, qarankay u tahay, gobolkay u tahay, cid walba danbay u tahay. dadka kacdoonka wada ee wararka isu dhex marinaya waxaan jirin ama media waxaan jirin isu dhex marinaya waxaanu u dareemaynaa ama aanu u aragnaa ama ay yihiin inay yihiin dad khalkhal gelinaya nabadgelyada ay jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gobolkaba. cid kasta oo ka yooyootanta muxuu ahaa meediyaha ama hadal xun ka sheegta ama hadal nabadgelyada kicin ku ah isu maraysa waxaanu ka qaadi doonaa tallaabo sharci ah sidii taliye hore booliiska u sheegay. cidna u dulqaadan mayno. nin walba ogow ninna uma suuro gelayso intuu iska hadlo oo wuxuu doono ku hadlo inuu haddana hadhowto iska joogo waddanka suuro geli mayso. waayo balaayo daba la qabto ma laha daama la qabtaa bay leedahay baa la yidhi. inta aanay tallaabada ay doonayaan aanay fulin ayaanu daamanka qaban doonaa insha Allah. ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi oo kulankani ka hadlay ayaa ugu baaqay bulshadu inay ka shaqeeyaan dejinta iyo ilaalinta nabadgelyada, isagoo gudoomiyuhu sidoo kalena uu sheegay in ay tallaabo adag ka qaadayaan cid kasta oo u muuqata in ay xaalad colaadeed abuurayso. halkii dadka looga dir lahaa baaqiyo nabadgelyo loo caqli celin lahaa wax loo sheegi lahaa loogu gurman lahaa ayaad moodaa in dadka qaar imika ay arintii nooc kale u bedeleen oo inay media intay soo fadhiistaan hanjabaada ay soo mariyaan ayay arintii maraysaa. qof xilkasa oo reer Soomaaliland oo maanta arintaasi inay sii socoto raalli ka ahay ma jiro. warwar bay ku haysaa dadka dhalinyaro waayeel waxgarad qurba joog qolqol joog cid kastaba warwar bay ku haysaa. sidaa daraadeed waxaan u baahanahay dadka wixii nabadeynta ka soo shaqeynaya ee goobta shaqadu ka tagayaan ka dhacay tagayaan mooyaan bulshada inteeda kale inay hadalada wanaagsan waanada wax sheega oo aqli celinta inay meediyaha iyo fariimahaba ay la soo fadhiistaan. cid kasta oo meediya la soo fadhiisata arin shaqaaqada ceel afweyn u muuqan karta inay tahay kicin ama maaragtay u muuqan karta inay kabriidka ku sii qabanayso. guddida nabadgelyada ee gobolka Togdheer waxay ogeysiinaysaa dadka reer Togdheer ciddii arinta ku kacda ee media la soo fadhiisata in laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan. waa digniin weeyaan nabadgelyada xukuumadda ka mas'uula cidna loo daba fadhiisan maayo. wadana cid ma xiri karayso
mid baan wadada u dhaxaysa Burco iyo muxuu ahaa Ceergaabo xiri karin mid baan wadada Burco iyo Hargeysa joogta xiri karin kii waxayna uu iska hadlay cidii dambe ee la soo fadhiistay miiliya hadallo noocaasa oo waxa weeyaan xaaladda sii murginaya waxaan ballan Ilaahay ku qaadan inaan ka qaadno talaabo waa fahmi kay saxirsi bulsha TV Burco